Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan halkan kaga hadlayaa aniga oo wata magaca ciidanka asluubta. Waxaan halkan kaga hadlayaa dhacdadii shalay ka dhacday kawaanka malayga israsaasayntii halkaas ka dhacday aan rabaa inaan faahfaahin fiican ka dhiibo maadaama odayaashii halkaas marayay ay dhaheen annagana loogu dan lahaa yaan rabaa wax runa inaan ka sheego. laba carabna maliyo shalay waan hadlay laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa hadal waa mergi oo hadba meel u jeesta. ciidanka asluubtu faalan ka dhiibaya waa ka warbixinaya maadaama taliye ciidanka asluubta ana ciidanka asluubtu waa ciidan qaranka Soomaaliyeed ayay meesha u joogaan. hawshii loo idmadayna hayaan inta gooboodo ay degan yihiin hawshaasay ka wadaan. uma joogaan inay qof ku dhibaateeyaan, uma joogaan inay qof Soomaali ah ku dilaan, muwaadin Soomaali inay ku dilaan uma joogaan. darajo kastaba ha wato ama ha soo wara ama ha soo mar ama hadda ha haysta darajada inay ku dhibaateeyaan uma joogaan. waxay u joogaan inay ilaaliyaan amniga qaranka iyo ummadda, gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhaxal lagu hayo, gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhaxal lagu hayo. qof muwaadina oo target ay u yihiin oo amar ku qabaan inay dilaan ma jirto, mana dhici karto. ciddi tiri aniga la igu sugaayay meesha kelmadda ayada raali gelin ha ka dhiibeen. waxaan leenahay waliba mas'uuliyiintii wadanka soo martay meesha ugu sareyso arrimaha ku hadlay ciidanka waa ciidankoodii raali gelin ha siiyeen. ciidanka asluubta waa ciidan aan qabiil u shaqeynaynin, waa ciidan aan arrimo qabiil ka qayb qaadanaynin una tagaynin, kaliya ku eg ciidan qaran inay yihiin muujinayo astaanteedana wato waay. taas waa shaqadii ciidanka asluubta. madaxda aan raali gelinta ka rabnana ayagu ma sugaynine kelmadda ayada hadday cid u sheegtay wataas. waxaan doonaynaa ciidankoodii baan nahay inay naga raali geliyaan, ayagaan nabadgelyadooda ilaalinaynaa, ummadda nabadgelyadeeda ilaalinayna. dalka waxa yaalla waa ogtihiin wadada kaliya ugu nabadgelyada badan halaha yarka oo aan degan oo la maray wadada kaliya dalka ugu nabadgelyada badan waay. waxaan codsanaynaa annagana inaysan dacayadeynin, waxaan ahayn ay nagu sheegin. askartoodii baan nahay, ayagaan ilaalinaynaa. waxaan codsanaynaa ciddi meesha maraysa inay is-sheegto la hubsado. cid kastoo maraysa noocu yahay in la hubsado ayay meesha u joogtaa askartu. cadowga dalka joogayna ee ku jira oo dhibaatada maalin walba ka wado argagixisada alqaacidada al-shabaab ayayna ilaalinayaan oo ummadda ka ilaalinayaan, xafiisyada dawladda ka ilaalinayaan. maahane ma ilaalinayaan nin Soomaali oo wadadiisa iska hay inay dhibaateeyaan uma joogaan. midaan hal la qaato runtii tan waay. hadalka runtiisi waa tan. haddaan run la sheegin beenaa qarsanay Soomaalidu tiraahda. siday wax u dhaceen aan ku daraaya. gaariga Cabdibilaha maray askarta waxay ahayd inuu istaago oo yiraahdo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud aan wadnaa. askarta jidkay u furi lahayd, waa la soo dhaweyn lahaa. ma dhihina gaariga waa gudbay, distan dheer baa u dhaxeeyay. markuu gudbay waxay joojiyeen gaarigii dambe si ay u hubsadaan. baabuurkii gudbay dib u rasaas u soo riday, u soo xabaday. kaamira jirta, ummad badanaa joogtay, magaalo weeye. wax cad waaye waxa aniga aan sheegay. dhibaatada Cabdibilaha sameeyay wuxuu bedeli gaaray ninkuu waardiyeynay. haddii cid xabad kugu soo rido waxay taadan ogeyn oo xabad kugu soo rido adna aad xabad haysatid, faataxa lama akhrinayo, xabada loogu jawaaba. arrinka sidaasay ku dhacday. xabadu ma ahan inay asluub bilowday, ma ahan inay cid ku qaldantay. gaarigay joojiyeen. Cabdibiluhu inuu istaago sheegay ahayd ay dhahaan mas'uulkaasaan wadnaa. haddaba jidku maray waa loo furay abeerta, waa la soo dhaweeyay sidii madaxweyne asigoo ah. hadeer yaa gacmo loo lulay oo jidka ku maray.
marka kalena hadday sheegi lahaayeen saas u mari lahaa habeenii maalinna way maraan madax ummadda mas'uuliyiinta siyaasiyiinta ayna ka masuugin askariga jidka taagan inay isu sheegaan ayna ka masuugin oo ay isku dayeen inay xoog ku maraan war aday nabadgelyadaada ilaalinayaan ummadda ilaalinayaan isu sheeg waxba kuma dhihi kara askariga waa ku soo dhaweynaya laakiin haddii adna aadan isu soo sheegin ama aadan is sheegin waa laba kelmadood isu soo sheegin ama aadan is sheegin staafkaagina meelan dhaweyn uu taagan yahay asna una wax sheegin muxuu u wadaa staaf ugu yahay staaf wuxuu yahay inuu istaaga baabuurka meesha askartu ila war madaxweynihii horaan wadnaay wadada u fura gaarigiisii lama joojiyeen dhabta inaan kala leexano ma aha idaan colaad u qabno gaar ah oon meesha u joognaa ma jirto shaqo qaranaan u joognaa ha nugula tixgeliyo asluubtuna dembiile ma aha askari meel taagan oo qaran oo waardiye u taagan oo calaamadiisii wata ma aha kuwa yani meesha taagan in la yiraahdo anigu igu sugaayeen taas ayadaan nama qabato meeshana waa nugula ogyahay burcadnimo kuma deganin ciidan qaran baan nahay oo meesha degan oo aagaas lagu ogyahay cid walbana waa nagu ogta noo ogolaada inaad istaagtaan oo sukaana sheegtaan in la yiraaha askarigi waa dambiile hala baaro dambiile ma aha hadduu askariga dambiile yahay anaa dambiile aniga hala baaro anna waxaan ku hadlayaa waa arki doontaan ساكوية وارديان صارني وحاني إلالي عدو إلالي حفيسيدان إلالي قارقة قرح وضع إلالي خبصو إلالي ننك محيه هيتو إسو صاحر حريو إنو غر حرم كإلالي تيبو تاقي هبيني مال دنبيلاتها إن لوغو درماه مدك له وحاميش مراي مدحويني هوري حسن الشيخ محمود madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu xasuusnaado askartiisa inay tahay kuwa shalay madaxweynaha u ahaa maantana uu raadinayo inuu bari u noqdo inay tahay inuu xasuusnaadaan ka codsanaynaa waxaan leenahay cid kastoo meeshaas marayso oo muwaadina oo run sheega askartaas waa dhibaataysan yihiin in gacan la siiyo waxay ilaalinayaan cadowgii dalkan qarxinayo oo la soo kuusay oo 2000 oo nin tiradooda gaartay yaa meesha ku jiro ilaalinaya haddii meesha ayda la furbada xeebteeda loo soo baray xabsiga waa la qabsanaya haddii birta sokol la qaado maxkamadaha la galay waad ogtiin hadda ka hor inta loo soo labisay darajo ciidan Soomaaliya yaa maxkamadaha la weeraray annagoo tiika aan baqaadayna waxaan ku amarnay darajo kasta watay ninkii idin soo maraayo hubsada halala siistaa liila hal hubsada shaqadooda ay meesha u joogaan wabillahi tawfiiq